السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad si toos ah nooga daawanaysaan saxaafadda Soomaalida Ogaadeniya ee ka howlgasha waddanka Canada gaar ahaan gobolka Alberta. Waxaa maanta barnaamij halkan ku qabtay jaaliyadda Soomaalida Ogaadeniya ee loo yaqaano Ogaden Somali Community of Alberta Residents Oscar. waxaa kale oo ka garab socday ururka dhalinyarada Ogaadeniya OSU oo qabanaysay February maalintii xasuuqa Ogaadeniya. waxaa halkan marti igu ah oo garabkayga taagan gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaalida Ogaadeniya ee gobolka Alberta mudane Mustafa Diirane. Mustafa ku soo dhawow saxaafadda Soomaalida. عبد الرحمن ودوهي وانا سلام يا دمان صحافه Soomaalida Ogaadeniya marka aad iyo aad baan u dhawahay waan ku mahadcelinayaa inaan soo dhawaato halkan waxaan ka arkaa oo iiga muuqda Ogaden Massacre Day oo xusaysaan maanta haddaad tihiin ururka dhalinyarada Soomaalida Ogaadeniya xafladan iyo munaasabadan sidee ayay idinku dhacday mudane gudoomiye عبد الرحمن waxaweye munaasabadani si fiican oo aad iyo aad u qurux badan bay noogu dhacday run ahaantii waxaanu maanta halkan uga faa'iideysanay xaflad kale oo weyn oo ka dhacaysay maxaan ku raadayay college-ka ama jaamacadda la yiraahdo Net University marka xafladaas waxyaabo fara badan isugu jirtay ayaa annagana qayb ka ahayd maxaan ku raadayay barnaamijkan inaanu ku soo bandhigno message-ka uu xambaarsanaa maxaan ku raadayay fariinta ay xambaarsaneed arrintan maanta qabanaynaay waxa weeyaan in aanu caalamka tusno xasuuqa iyo tacadiga iyo dhibaatada ka jirta maxaan ku raadayay Ogaadeniya ka jirta marka وسائل ماشي كم مقطع وحاول يبوستر وين أيام صبر تقريني أورك النيرة أو يسوي ألبرتا يجونا منطقة قبلنا برنامج كان مركا واحد بدنا بنوجه الجلاء واحد نوجه فايدة سنة ما أنت ماشي أنا كلا كلني لامك خلدون وأدي هذا فربضان أو دولة كندا منطقة نهاية كندا دولة كندا كميدا واحد شو هيوم رايت أكتيفيتيز نحكي هذا هيوم رايت كأديك أيات شوقي waxaan meesha kula kulannay high commissioner-ka human rights activists of Alberta aan kula kulannay waxaan u bandhignay guud ahaanba dhibaatada meesha ka jirta iyo tacadiga mataqaanay Ogaadeniya ka jira waxaan u qaybinay leafletyo noocan oo kala ah oo aanu ma garanaysaa aanu ku soo koobnay maxaan ku raadayay guud ahaanba tacadiga meesha ka jira iyo qoraalada mataqaanay qoraal cadeynaya dhulka meesha ka jira waxaan isku baray oo aan u gudbinay oo aan maanta ku qaybinay xafladan dadka fara badan isugu yimaadeen business cards-kaayagii ama meesha nagala soo xiriiri lahaa xafiiskaayagii iyo details-kii maxaan ku raadayay ururka OSU qaybtiisa ama farciisa Alberta sidaa darteed waxaa weeye maanta hawl badan baa noo qabsantay dadku aad bay u fara badnaayeen meesha ka soo qayb galay wasiirraa ku jiray waxaa ku jiray MPyo heer federaala ku jiray waxaa ku jiray wasiirro iyo MPyo kale iyaguna heer local oo prof Alberta ku jiray marka waxaan dhihi karaa run ahaantii message-ka aan xambaarsanay maanta heerkii u sarreeyay ayuu nagu gudbay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wayna noo qabsantay sidaan ugu talagalnay aad baad u mahadsan tahay mudane Mustafa runtii xafladan maanta ummadda Soomaaliyeed isugu timid message-kiina ka gudbiseen waxa kale oo jiray oo meesha iyaguna yimid community-ga Oromada waxa kale oo yimid community-ga Jabuutiyaanka iyaguna waxa ay ka hadlayeen xasuuq wax afkaara oo isweydaarsateen ma jira community-yada kale ee idin kala soo qayb galay xafladda عبد الرحمن كم أصلاً سؤالش وروم مانتا وحى مناسبة آدكيات كوبلارن السجود مدي أو كود الفائدة استي كوميتيال فربضن أو متقناي مدوي عدم بله مركا ورونتا رمض غيبة كهاي وان متقناي كلناي تعديga mataqaanay ka jira guud ahaanba ay dawladda Itoobiya ku hayso shucuubaha marka ay qaarka guumeysatay iyo qaarka kale xataa mataqaanay Itoobiyanimada ogolintaba way mataqaanay waan isweydaarsanay dhibaatooyinka meesha ka jira waan isbaranay maadaama ururku urur cusub ahaa oo hadda mataqaanay aan u maleynayo 4 bilood 3 bilood meelahaas inaanu Alberta uu ka jira ururka OSU waxay maanta tani noo ahay talaabadii koowaad ee aanu qaadno
shaqadii koowaad ee ururka dhalinyarada oo wasiyo Alberto uu sameeyo heerkii sareeyay noogu qabsantay waayo dhammaan community-yaasha ka howlgala maxaan ku rahaa waddanka Canada gebigoodaba waan wada kulannay kaararkii iyo xafiisyadii iyo businessyadooda iyo maalihii runaantii laga ilaahay dhammaan u kala qaadanay مسجدي يوحي فريمي أنا حمرسنا نبى نقول جبنا علاقات بانو كلا وضع حسن يعني ما تقنعي كلا قرني مركا أنت كلية معها ضدك عدان كأي ماشي سوبي مديبان يقولوا مسج كأي جالسين مركا وحصلي كرا إلا شن بقول أو ليفلت كنوع عصو كلا أيام ما أنت صابر تجرينا كنا هانتي نقوم هنا كمان the first half an hour إن أي دبنا قرنا بعدين إلا قرنا نهضر كوا كلا طلبنا سيدو كلا business كارر كي سيدو كلا بوستر ردي مركا حاولنا مسج كان ماشي قلت لك اللي آدي أدو ما أنت متقنع مرفع وهجاج waxaa halkan ka daawanaya ummadda iyo dhalinyarada OYSU ee caalamka qoydil iyo dhammaan ummadda Soomaalida ogaadeenaya ee ay Itoobiya gumaysato marka ugu dambeyntii Mustafa maxaad u soo jeedinaysaa dhalinyarada iyo jaaliyadaha halkan ka daawanaya runaantii dhalinyarada markii koobaad waxaan soo jeedinayaa sidoo bulsho waliba waxay ku horumartaa dhalinyaradeedu xilliga iyada ee lagu jiro xoogga jiray waa xoogga dhalinyarada marka kolba xilliga ayada dhalinyaradu wixii ay qabatay ayaa horumarkeena marka dhalinyarada Soomaalida reer ogaadeenaya waxaan kula dardaarmayaa inay doorkooda qaataan ku talagalaan dadkoodu sidoo dhubka uga bixi lahaa ku talagalaan inay isbedel rasmi ah keenaan ku talagalaan inay taqriir masiirka ama maxaan ku raacay ka taliska ummadooda gaarsiiyaan taas waa mid jaaliyadaha reer ogaadeenaya banaanka jooga guud ahaanba iyagana waxa si guud u farayaa waxa weeye waxaan nahay dadka kali ah ee u hadli kara dadkeen la gumaysta ee maxaan ku raadaan codka lahayn we are the voice of the voiceless marka sidaa darteed qof walba doorka kaaga banaan si fiican u buuxi waxa kale oo Cabdiraxmaan oo mataqaanaa in yar ku daraya xaflad kale oo ka horeysay waxa jirtay shalay to mataqaanaa ay dhacday oo mataqaanaa title-keedu ahaa mataqaanaa Black History Day Black History Month ahayd runaantii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ogaadeen Somali community of Alberta oo Oscar loo soo gaabiyay in ay tahay community-ga kali ah ee si legally ah dawladda federaalka Canada ay ugu soo ogolaatay inay iyagu kali ay yihiin cid xaq u leh laga bilaabo maalinkii shalay ah in ay qaban karaan munaasabada noocaas oo kale ah laguna fangareyn karo dawladana ma taqaanaa ay kaga heli karaan maxaan ku raadayay waxa loo wixii markaa support ay uga baahan yihiin ururka dhalinyarada OYSU ee Canada maxaan ku raadayay Alberta waxaan uga mahadcelinayaa inay ahaayeen doorka koobaad dadkii qaatay ee soo bandhigay hidihi iyo dhaqankii ee soo bandhigay dhammaan wixii lagu yaqaanay maxaan ku raadayay nooc kasta ha noqoto oo argaysa shalayto dhiilihii haamihii saamihii maxaan ku raadayay hidihi dhaqankii dhacliye daawilkii maxaan ku raadayay wax kasta oo u ah maxaan ku raadayay astaan u ah ummadda Soomaaliyeed inay ahaayeen dadkii mataqaanaa meesha ku soo bandhigay guud ahaanba jaaliyadana aad baan mahad ugu celinayaa marka waxaan leeyahay guys sii socda halka ka sii wada insha Allah waxa weeyaan waynu gaarayna gool aad baad u mahadsan tahay waan ku mahad celinayaa waqtiga fiican ee siisay warbaahinta Soomaalida ogaadeenaya ee ka howlgasha waddanka Canada inta aan dib u kulmayno waa anigoo Cabdiraxmaan aha waxaad si toos ah nooga daawanaysaan Ilays TV Qorraxay Web TV iyo dhammaan warbaahinta Soomaaliyeed wassalaamu calaykum